Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawaada muuqaalkeena maantay. Muuqaalkeena maantay waxaan kaga hadli doonaa Jack Bloomfield oo ah 17 sano jir gurigiisa ku sameeyay malaayiin dollar. Jack Bloomfield waa wiil hadda jira 17 sano, waxaana malaayiin dollar ku sameeyay isaga oo gurigiisa jooga, weliba dhigtana iskuulka sare. Waxay qisadiisu maantay tusaale u tahay dhalinyaradeena baraha bulshada iyo maalayacniga ku mashquulshan, iyo kuwa aaminsan inaysan waxba samaysan karin, iyo sidoo kale qaabka aad lacag uga samayn kadhid adigoo gurigaaga jooga. Ramadaan Kariim, fadlan ha ilmaamin inaad ku soo biidho channelkeena Koryaal kana mid noqoto bahda dhanka Korea nolosha. Jack Bloomfield waa wiil dhalinyaro ah 17 sano keliyana jira. Waxa uu dhigtaa sanadkiisii ugu dambeeyay ee iskuulka sare, waxa uuna ka mid yahay milyaneerada ugu da'da yar adduunka. Bloomfield waxa uu safarkiisa shaqo bilaabay isaga oo jira 12 sano keliya, waxa uuna ka bilaabay xagga internetka. Maanta hantidiisu malaayiin ayay kor u dhaaftay. Waxa uuna Jack bilaabay safarkii noloshiisa xilli hore, waana marxaladda ay dadku da'diisa ahi ku mashquulsan yihiin baraha bulshada iyo daawashada kartuunka. Waxa uu Jack isku xiray ganacsiga iyo tiknoolajiyadda, isagoo ku dadaalay inuu isbaro labada mihnadoodba. Waxa uuna samaystay mustaqbalkiisa qorshe dhammaystiran, kadibna waxa uu soo bandhigay waalidkiis. Waxayna la yaab ku noqotay waalidiintiis inuu sanad kadib hirgeliyay barnaamijkiisii, dhabbadana saaray safarkiisii ganacsiyeed. Waxa uu bilaabay inuu ka shaqeeyo beerta guryaha dadka ku dhow si uu cawska uga jaro, kadibna kaydiyo lacagta una isticmaalo si uu ugu maalgeliyo website-kiisa online-ka ah. Waxa uuna bilaabay website-kiisii ugu horreeyay la dhihi jiray Next Gift, kaasood ku dhex samaysan kadhid naqshadda bidaaqadahaaga, kadibna aad la wadaagi kadhid ehelkaaga iyo asxaabtaada. Waxa uuna ka helay barnaamijka website-kan sanad gudihiis lacag dhan 500 oo lacagta Australian-ka ah, una dhigmata $370. Waxa uuna lacagtaas ku samaystay maalgashi kale isagoo ku maalgeliyay website kale una bixiyay Blue Health, kaasoo ka caawinaya takhaatiirtu inay la socdaan bukaankooda iyo xaaladooda xilli kasta. Intii u dhaxaysay waqtigaas, waxa uu bilaabay forex trading oo ah sarifka online-ka, halkaas oo uu dhahay Jack inuu ka bartay xirfado fara badan oo ay ka mid yihiin maamulka arrimaha lacagaha ama finance-ga. Horey ayuu u sii socday Jack. Waxa uuna bilaabay ganacsiga loo yaqaano e-commerce-ga markii uu jiray 15 sano. Waxa uuna udubada u aasay shirkad ugu magacdaray Bloom Group ama Bloom Ventures. Waxa uuna bilaabay wax loo yaqaano online marketing oo ah suuqgeynta badeecadaha adigoo isticmaalaya internetka. Wuxuuna ka bilaabay ganacsigiisa online-ka xargaha lagu xiro lacagaha, halkaas oo qiimo jaban ku gadi jiray. Kadib markaasna waxa uu bilaabay inuu la xiriiro shirkado kale si ay u siiyaan badeecado kale oo raqiis ah, wuuna koray barnaamijkiisu. Waxa uuna bilaabay sidoo kale inuu badeecado kale qaab online ah ku iibiyo. Waa barnaamijka loo yaqaano dropshipping oo aad ku xisaabtamayso in alaabtii qofka macmiilkaad loogu geeyo qiimo jaban. Waxa uu Jack maanta leeyahay ilaa 6 xarumood oo ganacsi oo mid ka mid ah la dhaho Best Bargain Club oo ah store lagu gado wax kasta oo ay ka mid yihiin agabka dhalinyarada. Jack talooyinkiisa waxaa ka mid ah uma baahnid inaad aqoon siyaada ah u leedahay sida aad ugu guulaysato waxaad jeceshahay. Kaba soo qaad waxaad doonaysaa inaad horumar ka gaadhid internetka. Waxa uu ku leeyahay uma baahnid inaad shahaado jaamacadeed ka wadato kombiyuutarka ama IT-ga, kaliya waxaad u baahan tahay inaad wax akhrin kadho si aad u fahanto waxaad doonayso. Waana tan ka caawisay inuu horumar ka gaaro shaqadiisa internetka, waana midana looga baahan yahay maadaama uu internetku yahay goob wax kasta lagu baran karo lagana heli karo si fudud. Dad badan oo waxaa jira u malaynaya in internetku yahay baraha bulshada keliya. Xataa YouTube-ka aad ayuu uga faa'iido badan yahay marka loo barbardhigo Facebook-ka iyo Instagram-ka. Sababtoo ah YouTube-ka waxaad ka baran kartaa wax kasta oo aad jeceshahay, sida channelkeena Koryaal oo aad ka helayso xog ku anfacaysa oo la xiriirta ganacsiga. Waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso, aniga waqti igu filan ma haysto si aan u qabto waxa uu Jack qabtay, bal aan idinka sheekeeyo Jack iyo timetable-kiisa ama jadwalka noloshiisa. Waxa uu soo kacaa hurdada ka soo kacaa 5 subaxnimo. Waxa uuna bilaabaa inuu eego hawlihiisa shaqada inta u dhaxaysa intuusan aadin subaxdii iskuulka. Waxa uu ka shaqeeyaa ama dib u fiiriyaa casharadiisa iskuulka. Marka uu iskuulka aado, waxa uu ka soo laabtaa iskuulka 4 galabnimo. 4 galabnimo marka uu ka soo laabtana, waxa uu ka shaqeeyaa shaqo guriyeedkiisa ama homework-giisa, waana casheeyaa. Kadibna waxa uu bilaabaa inuu galo hawlihiisa ganacsi si uu ula socdo hawshiisa meesha ay marayso. Waxa uu isku dayaa inuu maamusho shirkadihiisa ganacsi, sidoo kalena waxa uu isku dayaa inuu wax akhristo maadaama uu yahay arday. Jack waa dadka aaminsan in fursadda ama wax aad jeceshahay
aad ku dhaqaaqdo isla xilligaas adigoon iska luminayn wax fursad ah. Mana jirto waqti la dhihi karo waa waqtiga ku habboon inaad shay qabato. Waqti kasta waa ku habboon yahay inaad ku dhaqaaqdo. Muhiimaddu waa inaad waxa ku dhaqaaqdo. Waxa uuna Jack dhalinyarada kula taliyaa inay isku dayaan in ka badan hal mar, yeeshaan han fara badan. Waxa uu Jack dhahay waxaa jiray buug dhiirigeliyay oo la dhaho Be Obsessed or Be Average. Noqo mid ku mashquulsan wax uu rabo ama mid caadi ah oo sida dadka iska caadiga ah. oo uu qoray Grant Cardone oo ah laftirkiisu nin xaqiijiyay guulo fara badan. Waxaan soo gudbin doonaa insha Allah muuqaalo kuwan oo kale ah oo ku dhiirigelinaya kana hadlaya dad horumar ka gaaray nolosha iyo maraaxiisheeda. Fadlan ku soo biir channelkeena. Mahadsanidin.